السلام عليكم أصحابتك وحرن جرالك إفتنا وفشيال وايدين سلامة ملك ستيدوني دعاليزك جوكتان وحايد الله سود دواذا حالة دينك ورمع في مدينة ما شاء الله تبارك الله مالمها وحان كله ما شاء الله واتني ماما وصف دي سنة وساميش ميسدادين يا حالة دينك ورمع في مدينة أصحابتي جرالك وحرن إفتنا وفشيال مركوادي مرلباد وايدين جعلا وايدين مهد عدنايا waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiina asxaabta nagu cusub waxaan leeyahay subscribe-ka like share-ka commentiga waxba ha naga baqiilinina asxaabtii hore noola joogtaysa hore noola joogtayna si ka fiicanba noola sii joogo nala baashaalo waqti nala qaata insha allahu tacaala asxaabay markasta waxaan ku dhahay inaan video idin soo duubo kama daalo aan ku dhahay kama daalo markaste waxaan jeclaa inaan hortiina soo fadhiisto inaan riwaayado idin soo sameeyo inaan video idin soo sameeyo hadda boga iyo laabta aan ku taalin waxba la inkama qaban kara asxaabteyda qaaliga ah waxaa idin leeyahay soo dhawaada waa idin jeclahay subscribe-ka nagala baqiilin like iyo share iyo commentiga meeshaan joogno hadda ilaahay ka soo idinkaan soo gaarsiiyay intaan inka badan inaan sii gaarsiin doontiin aan rajeynayna insha Allah taala soo dhawaada asxaabi cawda meeshaan waxa u soo fadhiistay iftina oo kaligeed meeshaan soo fadhiisatay saacadan ee tahay xilli dambe أنا كهدان جوجنو ماشان أفريقيا وحنوتها حلي دمبه أريد اللي حدي سعميرا سنوتها إن شاء الله أصحابي وحير ماشان بيسوف لي سنين ورتمال ما أدوا أسكين لترى لو ذا بريء سوشيال ميديا وحياب سان ويقصناين أقول ويقصناين وأسكين وحاسدها هيك أسكدمي دونه لكن ما بدمو يانبو وحي ويكسي ترايان وسيقص مايان أصحابي وحاسن وحكا لما أهن وحاواي رشكا بوي يو حبسة كهذا الكيدة سان مالمها نيتو رشكا بوي حبسة ويس فرين ويكالا تاقين ويس فرين ويكالا تاقين واس دقالين والا يالي ني شيكا دا سوي بداتي فاميلكا شيكا دا وحان كورهاي سناب جات هقلين انستغرام هقلين فيسبوك هقلين يوتيوب هقلين شقاء ايقا هينبو مالمها نيتو waa laga hadli laayay waxaan ku dhahay shaashada caalamka ma liijir shaashada caalamka asaas u saar ma liijir social media familka asaas u haya tooshka maalmahaneeto marka waxaan jeclaystay inaan ka soo hadlo maadaama aan gabar youtuberada ahay hadana gabar Soomaaliyeed ahay oo idhibaayo familkaas dhibaatadiisa ani idanqinayso xanuujinayso hadana gabar ahay oo dareemi karo waxaan jeclaystay cawada inaan soo fadhiisto oo ka hadlo dadku waxay leeyihiin way kala tageen had mar waxa leeyahay way isdagaaleen marba waxa rabaa la iska sheega xaqiiqada horta Allah waclam ilaaha ayaa og ayadana wali kama ay soo hadlin oo ma dhihin aniyo xaajigay garashka waa kala tagnay asagana wali ma soo hadlin oo ma dhihin waa kala tagnay laakiin adiga asaga waxyaabo sarbeeb uu ka bixiyay ayadana waxa arkay oo TikTok single waxaas ay ku soo qoratay waxaas looma qaban karo oo lama dhigi karo anaka hadda ilaa way isfureen ma dhigi karno even weba isfureenbo Soomaali weyne weba isfureen kaba soo qabo ayagoo kala tagay kaba soo qabo hadii ay kala tagaan dadkaanito shalay markii ay maanta war xumaada loo marinayo wiilka YouTube-ka loo marinayo maxaa la dhahay commentiga loogu qoraayo waxyaabaha badan loo caynayo loo jaifeena le subscribe-kan kala noqoneena waxa la leeyahay maxaa la dhahay nacasa tahay doqonaa tahay kana tahay aniga waa idan qasa wallahi waa idan qasa been idin sheegay horta labada qofood shalay markay is guursanayeen xafsa yaa idin baray shalay Soomaali weyn xafsa shalay yaa idin baray yaa YouTube-ka keenay waa rashka soo ma ogidin rashka booya shalay xafsa idin baray wuxuu idin baray dumaashi ahaan inay dumaashidin tahay oo gabar walaashiina ay tahay rashka oo ma saaxiibadiisa ku soo gashay haddana oo xaaskiisa ay noqotay oo laba qofood ilaa calaf sugu daray ay noqotay even weba dhacdabo hadii ay labada qofood ay isku yeelan waayeen calaf ay kala tageen wayba kala tageen ma calaf isku yeelan waayeen ilaahay muxuu u keenay hadii la heshiin waayo ardullaahi waasicat labada qofood furiin waa la keenay nikaahna waa la keenay sida nikaah loo keenay furiinkana loo keenay wax qasaba ma aha doqona noqotay nacasa noqotay hiblaaya noqotay intay ka baxday never wax fiican ma aha hadii ay kala tageen waa ka xunahay qoys Soomaaliyeed oo burburay waaye anaga kuma faraxsan inay maanta kala tagaan rashka iyo xafsa wallahi sa ugu xirnay janalkooda
comment markaste aan ka bixin jirin xataa male mar alla marka uu soo dhaco gambaleelka on yahay mar alla marka uu soo dhaco waa daawan jiray laba qoys aan ku faraxsanahay lamaana aan ku faraxsanahay asad xaajiyo markii uu lamaanayaasha qoray number 1 qof u codaysaa kamid ahaa oo rashka boy xabsi soo dhahday saasay tahay soo maahan maanta wayba kala tageen bo anaka ma ogin inay kala tageen laakiin sida la leeyahay ilaaha ayaa xaqiiqada og inay kala tageen laakiin even haddii ayba kala tageen ay run tahay shalay ayaga noloshooda kusoo heshiiyey inay isguursadaan dad oo isku xalaala noqdaan familkooda isa siiyey waa la isdoontay waa la isoo guursaday shalay ayagoo waxay noo imaadeen dhahayo waa isqabnaa oo keliya waa ku taageerna waa u sacabatunay anaka oo alxamdulilah qoys soomaaliyeed oo ku sabiiray qoysaska soomaaliyeed oo islaam ah waa u sacabatumeyna anaka waa khasbina u sacabatuno waa soo dhaweynay maanta ayaga famil ahaan ayaga haddii nafsad ahaantoodii ama heshii waayeen ama say rabaan dadka war waxyaabo badan iska sheegaya dad waxay leeyihiin gabadha familkeeda laga dhaqi waaye oo ay wiilka ka furtay dad waxay leeyihiin heesta ugu soo laabtay calaa adligeeda isku dagaaleen mar waxaa leeyahay asagiyaa xumeeyey adii anaka ma ogin allahu aclam anaka cilmi qeymanihi waxay ku dagaaleen waxay ku kala tageen anaka waxaasoo dhan ma ogin anaka indhaha unbaa noo macalina ma ogiye cilmi qeymanihin ilaah ayaa wax kasta og labadaas qof waxay ku dagaaleenna ilaah ayaa og waxay fahanteen soo ma ahan haddii ay maanta dhaheen garabkiisa aa ka weyseen fiideoda muxuu u daleeday doqonka nacaska saan fiideoda waxaa laga yaabaa inuu bareefad ku xirtay oo meeshaas khilaaf ka imaaday ama muran oo ka jiro ama famil ha ahaado ama labadooda dhexdooda ha ahaado inuu bareefad ku xirtay fiideoyadii oo saba iska daleedin ama oo daleeday oo lagu heshiin waayo dhahay hala daleedo waa la iska daleedi karaa anaka kaliya ma saari karna eeda maanta ma dhihi karna rashka boo ayaa qaladka iskala kor iyo hoosba asaga keligiis ayaa iskala anaka ma dhihi karno wasaw meeshii ma joogno war Soomaaliya waxaan aabuubuuninaysiin xumaantaan aabuubuuninaysiin waxaan aawadiin iska daaya waa idin baraya waa iga codsi bifadli iska daaya waxyaabahan aad ku hadlaysiin kowdaha marka asxaabay Soomaaliya waa idin baryeena codsiye naga tahay waxyaabahan la buubuuninayo la joojiyo hal iska daayo wiilkan kaligiis dusha laga saaray hal iska daayo xafsana eed masaari karno waa gabar walaasheena rashka boyna eed masaari karno waa wiil walaalkeena inkastoo jecleen inay isla joogaan haddii ilaahay calafkooda oo inuu sii jiro oo dadkaas ubad inuu ka dhex beero ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta yaa qoraa ilaaha qoraa soo maahan oo ilaahay u qoray qoyskaas qoys qurux badan ay ahaayeen hadduu ilaahay u qoray inuu quruxdoodii sii jirtana alxamdulillah shukr bil caalamiin ilaahay ha u kaso oo ha u soo celi farxadoodii haddii ay soo qorneenba wax kasta waa qoraal maalinta xab iyo biyo ahda lagu qoray haddii ay u qorneenba inay rashka bo iyo xabse intaas ka badan wala ceeshine waxaan leenahay Soomaali weyne idinka buubuuniska daaya waxyaabaha ku hadlaysiin joojiya teeda labaad horta nolol famil markii la dhahay waxay ku fiican tahay bareefad inay noqoto public waxyaabo laga fiican yahay waaye ma dadkan lamaanayaasha oo noloshooda lamaanahooda anigu waxaanba dhihi lahaa waxaanba aaminsanahay totally waxaan aaminsanahay haddii gabar youtuber ee guursanayso ama wiil youtuber oo guursanayo noloshooda haba ka dhigtaan tu bareefad ha isla soo jeedaan oo waxyaabaha isla soo maxaa la dhahaa isla soo jeediyaan video yar isla soo duuban laakiin ceesho milixaan iyo jaceelka social media la soo dhex dhigay habal la joojiyo qoysaska uu dumi jaceelka social media la soo dhex dhigay rumaal isku sheegaa bisbeen xasida imaan karo ilaa imaan karto waxyaabo kasta imaan kara marka hal la joojiyo Soomaali weynay hal la joojiyo social media la soo dhex dhigayo jaceelka hal la joojiyo teedal baad wiilkan walaalkeen hal laga dago hal la daayo haddii xabsi ay soo hadli kartana ha soo hadasho si wiilkaneeto loo leeyahay maalin kasta la dhahayo subscribe-kan kaala noqona doqonaa tahay hiblaayaa tahay kanaa tahay baq oo eeda la saarayo waxyaabo fiican ma aha totally qof bilaa labadan qofood shalay ayaga iswateen tooda ha ku mashquulinina u duceeya maanta waa walaalihiin ducee inka mudan yihiin oo keliya shalayna xabso walaasheen ahayd haddii ay markay la joogtay rashka boy maanta markay ka tagtane waxay tahay walaasheena rashka boy shalay markay xabsi iyo rashka boy isla joogeen sidoo kale walaalkeenu ahay waa daawo jirnay waa ku xirneen
maanta haddii ay kala tageen ma dhaheeno rashka ma daawanaan youtube furo xabso waa ku taageereynaa antaa kaa baxeynaa anakaa ku sabood garaynayno baqab maya xabso hadday youtube furato waa taageereynaa haddii uu maxaa dhahay rashka boykiisa shal ugu xirnaynaan maanta nagu xirnaanayna sida shal u garab taagnayna u garab taagnaa waa wiil walaalkeena waa wiilkeeni meelna nagama aado meelna noogama go-o haddii ay labadoo qofood isfahmi waayeen ayaga ay noloshu wadaagi waayeen anaga qasabna isugu xirayno haddii ay iskeensadaan ee dhahaan anaka iswadane waa kan waa soo laabanay falyatafadal waa soo dhaweyneynaa haddii ay dhahaan walaalayaal anaka isqaado weynane falyatafadal sidoo kale waa soo dhaweyneynaa laakiin ma ahan inaan qasab labada qofood ku wala noolaysiino anaka waa jecelnahay famil qurux badan famil islaamka inuu barto waa jecelnahay alxamdulilah laakiin haddii ay noqon weysay maba aysa dhicinba inaan qof dusha ka fuulno ma aha ha laga dogo wiilkaaneed ana waxaan leeyahay ha laga dogo kommentiyaasha xun maxaa la dhahaye maskaxda u rooneen oo qalbiga u rooneen oo indhaha u rooneen oo loo qoraayo ha laga daayo tootaliba ha laga daayo waa idin baryanaa bifadle asagoo oo hadda amaandhowd uu soo hadlay hadalla xanaaqa ka yeeray qofka bili-aadanka asagoo barabareen ku jiro oo laga yaabe markii gurigaada iyo ay kacsan yihiin iyo markii banaanka way kala qurux badan tahay qof banaanka la dagaashid iyo mar gurigaada oo dagaal ka jiro way kala qurux badan tahay haddii ayba guriga asagoo gurigiisa dagaal kula jira aad idinkana ugu sii dartiin aad dhahdiin erayo xun aad sii dhahdiin qofka xataa maskaxiyan waxbaa u dhibin karaa soo moogidin wiilka walaalkiina inka waalan maskaxiyan yo inka noqonin marka waxaa idin lehay soomaaliya warkii ay idinku badinin labadaas qofood shalay ayaga iswatay maantana ayaga kala tageen waxaan dhihi karnaa marka anaga hala joojiyo waxyaaba qaladkaa lagu hadlaya hala joojiyo nolosha dadka oo lagu mashquulayana hala joojiyo xabse waa walaasheen rashkan waa walaalkeen ilaahay haddii calif isku leeyihiin oolaad dhexdooda ku dhiman tahana allaha isku soo celiyaan leenahay anagu waa u duceynaynaa ducey naga mudayihiin asxaabteeda meesaan war kusoo koobayaa rashkan waxaan jeclaan doonaa inuu kasoo hadli doono oo dhihi doono wixii jiro oo xaqiiqa oo uga hadli doono dadkiisa oo fahansiin doono anakana waan ka sugi doonaa insha allahu tacaala hadda asxaabteeda meesaan kugu soo gabagabeynayaa khayr badan ayaan rajeynayaa subscribe-ka leeka sheerka commentiga waxbaha naga baqaylinina kulligiin waa idin jeclaha wallahi dhammaantiin waa idin jeclaha intii ugu xiran faniskayga oo dhan maa live faniskayga oo dhan waa jeclahay maasha allah tabaaraka allah khayr ayaan idin rajeynaya